sida ogtiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya tabeelahan aad ku soo aragteen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku soo galay dadweynaha jeclaantooda iyo inuu ballan qaaday inuu jecel yahay inuu wax u qabto sida la socotaan maalmahan barnaamijyo isdaba jooga oo bulshada lagu horumarinayo ayuu waday alxamdulillah waxa ka mid noqotay tan maanta aan joogno inuu asiga jeebkiisa gaarka ah oo ka fiiqay ama uga daaweeyay 100 qof oo indhoolayaal ah aragti aan lahayn oo qaarkood dhowr sano aysan waxba arkin alxamdulillah si hadaba soo booqanay qaar ayagoo la qalay qaarna la qalay alxamdulillah oo lagu guuleystay inta u dambeysana maanta dhamaystirka ay tahay waxaan leenahay ajir Allah ka siiyo Allah ku kaalmeeyo khayrka ina sameeyay ummadda Soomaaliyeedna sidaas oo kaleeto inay isku daysadaan oo iscaawiyaan waxooda ku filan markaas ay ka badan yihiin inay ka kaaftoomaan dadka islaamiyada inay wax siiyaan ayaga madaxweynaha